ani waa qiso dhaba oo dhab u dhacday. Haddaba qisadan dhabta ah ee dhacday ayaynu muuqaalkeenna ku soo qaadanayna. Waa oday Soomaaliyeed oo faraciisii hore uu ka soo farcamay deegaano ka mid ah deegaanada Itoobiya. Haddaba odaygan Soomaaliyeed ee dalka ku noolaa muddo lagu qiyaasay 45 sannadood ayaa waxa uu ka soo ifbahay deegaano hoos yimaada deegaanada Garoobe. Haddaba wiilkan Soomaaliyeed ee aad aragtaan ee waraysanaya ayaa isagu ah wiil samafala ah oo u gargaara dadka dhiban. wiilkan ayaa muuqaal baraha bulshada lagu faafiyey ka soo duubay. Haddaba markan waxa ay qisada ku saabsan tahay odaygan waxaad aragtaa halku uu ku nool yahay iyo sida aad u sheeda muuqaalka in uu isku soo hagaashiyey dhagxaan uu miraha ka soo ururiyey. waxaa nala gudboon inaan faafino muuqaalkan. qisadan dhabta ah ninkan aad arkayso wuxuu yidhi waxaan ka imi Itoobiya 35 sannadood ka hor oo halkaan galay Soomaaliyaan galay. markaan Soomaaliya galay waxaan deegaan u noqday Garoobe. diin kalaan hayso waan ka baxay buu yidhi oo hadda saxdii baan ahay. waxa weeyaan halkaas iska shooga odaygu. ilaahay mahadiha ka gaadhay qisadan ayaynu gelaynaa baldaawsho wanaagsan. fadlanna waxa weeye aynu caawino odaygan oo waxa weeye aynu garab galno oo waxa weeyaan waad aragtaa halku wax ku qarsanayo. qisa dhaba haddaad arki jirtay waatan ku dhacday odayga. wuxuu leeyahay waxba maan dhalin, carruur maan dhalin, waxba weligay maan dhalin, weligay waxba maan dhalin buu leeyahay. wiilkaas Soomaaliyeed ee samafalaha ah ee reer Garoobe ee dadka caawiya ayaa lagala xidhiidhayaa oo lambarkiisu waa kanaan hoos idiin soo dhignay. muuqaalada kala duwan ee aan soo duubno muuqaalkan aad buu uga duwan yahay runtii. qisada dhabta ah ee ku duuganna waanu kula wadaagaynaa ee ku soo dhawow baan ku leenahay. odaygan Soomaaliyeed ee waxa weeye hadda Soomaaliga noqday dee beriga hore Itoobiyaan buu ahaa. Sharfar baa la odhan jiray. imankana magacyadeena ka mid ayaa loo bixiyey. haddaba odaygani markii uu soo galay dalka muxuu rabay? markuu dalka soo galay odaygani waxa weeyaan wuxuu ka soo cararay dadkoodii oo aan ciidina waxba siin oo waxa weeye iswada nacay. dabeetana waa kaa soo galay Soomaaliya. haddaba markan Garoobe odaygu ku nool yahay deegaano hoostaga Garoobe ayuu ku nool yahay. balse waxa weeyaan waxa ila siinaya warbixinta wiilkaas Soomaaliyeed ee lambarkiisa aan hoos idinku qornay ayaa waxa weeyaan u tegey oo ah wiil samafala ah oo dad fara badan caawiyey oo dad badan ku nashixeen. maanta u dambeysay wuxuu caawinayay gabadh umulah oo waxa weeyaan markay umushay ayaa waxay weyday ilmaha waxay ugu maydho dharka biyo keliya ugu maydha. wuu cararo wuu u yimi wuxuu soo ibiyey sonkor, wuxuu soo ibiyey caano, wuxuu soo ibiyey alaabtii dharka lagu meydhayay, wuxuu soo ibiyey wax walba, wuxuu soo ibiyey in carruurta aan wixii lagu seexinaya yaraa wuxuu u keenay waxay ku faraxdo timir alaabo fara badan. haddaba ma doonaysaa inaad adna liibaanto oo aad meel wanaagsan marto? odaygan iyo waxay rabnaa inaynu hooyadan caawino labadoodaba. lambarkan ayaa adigu kala xidhiidhaysaa. intaa markaynu ka nimaadno waxaad sodhan kartaa waxay ninkan Itoobiya ka yimi ee aan xataa ka iman deegaanka Soomaali galbeed. wuxuu ka yimi waa Itoobiyaan saxa odaygani. waxa weeye waa Itoobiyaan saxa oo weliba waxaan u malaynayaa inuu yahay ardul xabash inuu yahay baan u malaynayaa, axmaarig inuu yahay baan u malaynayaa. balse hadda waa Soomaali. wuxuu yidhi cid maan dhalin buu yidhi oo waadiga arka. wuxuu ku nool yahay meel duddo ah. duddo ayuu wax ku qarsanaya. odaygu waadiga arkaya inuu meel duddo ah wax ku qarsanayo. duddadu waxa weeye meel magaalada ka koornaysa ayuu wax ku qarsanaya oo iska degan yahay oo ciidina uma timaado. dadkaa waxa weeye wax siisiiya mooyaane ee naxa. dad baa jira naxo oo waxa weeyaan wadna qabad leh. dad baa jira wadna qabad leh markaan leenahay waxa weeye dad naxariista oo waxa weeyaan in wanaagsan ayaa jira. haddaba odaygaas Soomaaliyeed sidaynu ku caawin karnaa? odaygaas Soomaaliga noqday ee waxa weeyaan aad arkayso
inuu meel dudo ah oo cidlo ah uu joogo ee uu wiilkaa yar waraysanayo adiga bare gurigu ku jiro waad aragtaa waxa weye dhagxaanu isagoo isi saarsaaray iyo baca uu meelaha ka soo qaadqaaday oo uu waxa weeyaan isdul saarsaaray weeyaan sow ma aragtid muuqaalka waa soo daawatay waad u fiirsanaysaa muuqaalka waxa weeyaan odaygaa la waraysanayo sidii aynu wax ugu qaban lahayn waxa weeyaan falowgeed ma qabannaa falowgeed sidaynu ku qabannaa sidii aynu odayga u caawin lahayn waa inaynu muuqaalkan dadyow fara badan oo caana gaadhsiino oo waxa weeye aynu baraha bulshada ku faafino waxa baraha bulshada markaynu ku faafino wuxuu helayaa dad caawiya lambarkana waa annaga hoos dhignay oo waxa weeyaan waan ku qornay sidaasaa waxa weeyaan aynu ku caawin karnaa qisada dhabta ahee meesha ku duugan haddii aynu u gadagallo maadaamay qisa ku jirta meesha qisada dhabta ahee ku jirta waxa weeyaan odaygu wuxuu ku nool yahay duddo waxa weeyaan waxba ma haysto badar buu meelaha ka soo qaadqaatu karsanaya waxa weeyaan wiilkaa samanfala ahaabaa raba inuu caawiyo oo wax siisiiya wuxuu soo galay 30 sano ka hor dalka wuxuu ka soo lugeeyey Itoobiya wuxuu luqu soo galay xamar buu luqu soo galay aakhirkii adigu wuxuu warwareegaba garoobe deegaano hoos taga ayaa waxa weeye hoy u noqday uu iskaga nool yahay dadyow fara badan baa jira oo dhibanayaal ah oo waxa weeyaan maanta aan waxba aan haysan haddaba annagu waan jecelahay oo waanu ka damqannaa dadka walaalihiin ah inaanu wax u qabanno inta codkayaga ahna waanu siinaa oo waanugu bushaaraynaa oo waxa weeye dad baa jira in loo hadlo oo keliya u baahan ayay u baahan yihiin haddaba walaalow muuqaalkan faafi ilaahay khayr ha ku siiya waxa weeye meel kasta ku faafi muuqaalo badan ayaanu samaynay oo aanu ka samaynay in waxa weeyaan wiilkaasi dad u caawiyo oo samafalayaala muuqaalka aanu hadda baahinayno maaha muuqaal aanu kaga warramayno warar isdaba yaalla balse waxa weeyaan qiso dhaba iyo waxa weeyaan hooyadaa umushay ee waxa weeye aan waxba haysan ee waxa weeye markii ay xalay umushay waxba may haysan waxa weeye ninkeeduna uu ka dhintay oo waa agoon ilma yaro agoonay dhashay waxa weeyaan inan quray dhashay oo meelahaas waxa weeyaan liinta ku iibiyaa marna waa laga iibsadaa marna way ku quruntaa hooyadaas oo umushay ayaa waxa weeye muuqaal laga duubay baraha bulshada aad ugu faafay run ahaantii oo dad badan ka naxeen balse waxaa la doonayaa in fadhiga laga kaco oo aynu u gurmano oo aynu cid walba u dirno muuqaalka oo aynu cid walba ugu sheergarayno hooyadaasi waxay umushay xalay toole ilmo yar bay dhashay markay ilmihii yaraa dhashay waxaa la waayey adigu waxa weeye wiil ka hor bay dhashay dadkii markii ka kala tegeen wixii yaraa loo kankanay bay ka dhammaaday dharkii waxay ugu maydho ayay weyday biyo quray ugu maydhay biyo qura waxa weeyaan caanaha ilmuhu marka la rabo in la shaqsiiyo wuxuu rabaa inuu hooyadu ay wax cunto nafaqa leh maxay cabtay biyo barax yaroo caana ay ku baraxatay ayay cabtay intaasay tiri ha u gororaano ha u ururaan haddaba wiilkaasaa ka farxiyey oo u keenay sonkor iyo daasad caano ah iyo xabad yaroo timira balse waxay u baahan tahay run ahaantii hooyadaasina in aynu garab istaagno oo waynu guulaysanaynaye aynu ka kacno fadhiga oo aynu gurmino dadkeenna dhiban ee aan waxba haysan odaygaas aad arkaysa badarka karsanayana waxa weeye waa oday hadda Soomaali noqday oo waxa weeyaan waad aragtaa diifta iyo duruufta ka muuqata duruufaha la iskuma naco waar duruufaha la iskuma nacaan fadhiga uga kacno oo aynu hiilino sidaynu ugu hiilin karaynaana waxa weeyaan inaynu wax siino waxaad hayso u dir haddaad waxba hayn muuqaalka sii faafi dad kala arkaya oo wax haysto oo waxa weeye kugu xiga guriga haddaad waxba hayn guriga kugu xiga ayay ka shidan tahay guriga kugu xiga u dir oo micnaha qof kale u gudbi baan ku leenahay waanaad ku mahadsan tahay sida quruxda badan ee aad u faafin doonto muuqaalka